xili muddooyinkii ugu dambeeyay guud ahaan deegaanada Hirshabelle gaar ahaan magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar ay ka jireen fatahaadyo uu sameeyay webiga Shabeelle isla markaana saameyn uu ku yeeshay dadka degan halka uu fatahaadu uu ka sameeyay webiga Shabeelle ayaa waxa maanta shir jaraa'id oo arrimahaasi looga hadlayay Jowhar ku qabtay guddoonka baarlamaanka Hirshabelle Canab Axmed Ciise gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle oo ka hadashay shirkan jaraa'id ayaa baaq u jeedisay dawladda federaalka ee Soomaaliya sheegtayna in isha bidix ay ka laadahay dawladda federaalka ee Soomaaliya maamulka Hirshabelle waxaan leenahay dawladda federaalka ee Soomaaliya aan baaqan u diraya waxaan leenahay madaxweyne ra'iisul wasaare waxaad moodaa isha bidix ee Hirshabelle inaan la adihin waxaan codsanayaa oo si naxariis leh kaga codsanayaa inaad aragtaan shacabka banaanka taagan ee ay biyuhu saareen ee guryahooda hal qof oo ku hoyda aan la arag korna roobku kaga da'aayo hoosna daadadku kaga socdaan madaxweyne ra'iisul wasaare waxaan codsanaynaa inaad Hirshabelle dhibaato ka jirta colaada ka jirta waxa ka jira fatahaada ka jirta intaba ina fiirisaan war ina colaada fiirisaan oo maalin kasta nimankan jidka noo taagan oo nalaynaayo Hirshabelle ina fiirisaan madaxweyne ra'iisul wasaare maxaa idinku dhacay miyaanan kamid ahayn dawladda federaalka miyayna Hirshabelle kamid ahayn madaxweyne ra'iisul wasaare miyayna dawladda federaalka Hirshabelle kamid ahayn maxaa jiro maxaa loo fiirinaya waata dhulka kala diyaaraduhu heehaabayaan waata dhulka kala la duqeynaayo cadawga waata dhulka kala 24 saac la dur saagaya annaga haday abaaru naga dhacdana nooma timaadaan haday fatahaadu dhacdana nooma timaadaan haday colaadu dhacdana nooma timaadaan waa codsanaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo Hirshabelle hoos u fiiri xasan cali khayre ra'iisul wasaaraheena qaaliga hoos u fiiri dadkii ka barakacay guryahoodii oo banaanka u baxay ma haystaan hoy ma haystaan waxay huudaan ma haystaan biyo ma haystaan baad ma haystaan dawo ma haystaan dadkii banaanka qorraxda taagan yihiin wax baad ay haystaan mal biyana ma haystaan kaniicada hadda si kacaysaayo hadda ka sii daran weey marka halkaas caafimaad darro iyo hoy la'aan iyo cunto la'aan wax laga sheekar ma caruurtii iyo dadkii banaanka wada taagan yihiin dadkii naafadaha duqoytidii qorraxda la taagan yahay habeenkii waa qabow mar waa roob marna waa dhaxan marna waa kulayl maalintii marka dhibaatadaas jirta soo gaaro Hirshabelle maanta waxay ku sugan tahay xaalad bani aadamnimo oo xagga amni iyo xagga muxuu nololeed waxa uu weyn maanta ka jiro waxay tahay fatahaad ama biyo baxo saameysay Hirshabelle haba ugu darnaato gobolka Hiiraan oo runtii ay biyo baxo ku soo laabatay muddo badan haddana laga qaxayo dhammaan dad boqolaal kun ay ka qaxeen dadka ay banaanka daatihiin naf bani aadam ku go'day xoolo ku baaba'een dadka dhibaato badan haysato hoy aysan haysanin muxuu ahay cunno aysan haysanin biyo nadiif aysan haysanin dhibaato badan ayaa ka jirta gobolka Hiiraan muxuu ahay guud ahaan marka waxaan rabaa inaan codsi u soo jeediyo ummadda reer Hirshabelle ee wax haysato jaaliyadaha dibadda kuwa gudaha in kasta qof kasta oo wax haysto reer Hirshabelle inay maanta isgargaaraan oo walaalahood maanta dhibaataysan ay u gargaaraan ayaan rabaa marka hore in baaq u diro marka labaad waxaan rabaa in baaq u diro dawladda Soomaaliyeed ee dalkan mas'uulka ka ah ee ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii aan isleeyahay muxuu waa nin aad u niyad fiican iyo muxuu ahaay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane xasan cali khayre oo nin aad shaqo badan runtii waxaan leeyahay iyo dhammaan xubnaha ka soo jeeda Hirshabelle ee baarlamaanka golaha wasiirada ugu jira in la soo jeesto masiibada ka jirta Hirshabelle in wax laga qabto runtii weli gacan badan ma helin gobolkaasi iyo dhammaan Hirshabelle oo dhan sidoo kale xarunta muxuu ahaay Hirshabelle Jowhar dhibaatooyin baa ka jira ay naftooda biyihii يعني meelo badan bay ka soo baxeen gacmaha ayaa lagu celcelinaya wali waxaana dhibaato ku haaya biyahaasi soo fatahaadkooda inuu diidka ay had iyo jeer meel biyaha ka soo furaya marka waxaan u baaqayaa marka ummadda Soomaaliyeed in ay muxuu ahay gargaar degdeg la soo gaaraan Hirshabelle qof la gargaaro waxa uu muhiimsan ama naf la badbaadiyo ayaa ugu muhiimsan wax la badbaadiyo runtii
halkaas dad ayaa ku dhimanaya carruur ayaa ku baaba'ayso waayeel ayaa ku dhimanayo dadka yacni muxuu ahay liito dhan ku baaba'aya caafimaad ma jiro yacni arrimihii bulshada way baaba'een runtii waxaa ka rabaa inaan u baaqo hay'adaha caalamiga ama beesha caalamka ee gargaarta muxuu ahay Soomaaliya inay ka soo gaaraan gargaar degdeg la soo gaaraan dawladaha diriska ah iyo dhammaan cid kastoo yani Soomaaliya yani muxuu ahay deeq bixiyaasha daneeya inay gargaar degdeg la soo gaaraan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan shirkan jiraad u qabanay halkan inaan wax ka niraahdo xaaladaha cusub dalka ka jira gaar ahaan arrimaha fatahaadaha ee saameeyay dowlad goboleedyada koonfur galbeed Hirshabeelle iyo Jubbaland meelo ka mid ah sidaas daraaddeed dowladda federaalka xukuumaddeeda annagoo xeerinayna muhiimadda ay leedahay u gurmashada dadka iyo deegaanada waxyeeladu ka soo gaareen fatahaadda loona baahan yahay in si degdeg ah gurmad bini'aadnimo loogu fidiyo meelaha iyo xubnaha ku tabaaloobay musiibadan dabiiciga ah oo ay sababtay inay webiyadu soo karkaara jabsadaan geystaanna khasaaro waxaan doonaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loogu fidiyo gurmad degdeg ah sidaas daraaddeed iyadoo ay madaxda dowlad goboleedyadu ay goobjoog ka yihiin ayaan waxa aan magacawnay guddiga ay magacyadoodu hoos ku xusan yihiin oo ugu horeeyo Xamse Saciid Xamse oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka oo ah gudoomiyaha guddigaas Marwe Dr. Fawziya Abikar Nuur oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ah wasiirka wasaaradda amniga Marwe Fawziya Maxamed Sheekh oo ah wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha Saciid Xuseen Ciid oo ah wasiirka wasaaradda beeraha Abdullaah Goodax Barre oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamaal Maxamed Xasan oo ah wasiirka wasaaradda qorsheynta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ah wasiirka warfaafinta iyo Isaaq Maxamed Maxamuud oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha guddigaas oo aan rabno inay howl galaan sida ugu dhaqsaha badan oo bilaabaan shaqadooda maanta ayaa waxa laga rabaa inay xiriiriyaan shaqada ay xukuumaddu wado ka shaqeeyaan arrimaha aan kor ku xusay u gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee kala jooga dhammaan meelaha ay saameeyeen fatahaadaha hadda dhacay iyaga oo la shaqeynaya maamulka iyo madaxda dowlad goboleedyada ay saameysay arrinkaasi sidoo kale dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan guddigaas ahmiyadda ugu horeysa inta xaaladani ka xalismaysana loo weeciyo sidii dadka Soomaaliyeed loogu gargaari lahaa sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dhammaan beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha ay arrimahan khusayso in sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado dadkaas xukuumadda federaalka iyadoo ka ambaqaadaysa dhibaatooyinka biyo la'aanta iyo fatahaadda dalka ka jirta oo mar walba soo cusboonaata waxaan hadda bilownay inaan samayno qorshe 5 sano ah oo looga hortagi doono oonka iyo fatahaadda taasoo aan kala shaqayn doono dowlad goboleedyadna rajayn doonana muddo 5 sano gudahooda haddii Ilaahay yiraahdo in lagu soo afjari doono fatahaad iyo oon iyo biyo la'aan dalka ka dhacda haddii Ilaahay yiraahdo sidaas daraaddeed ayaan waxaan dowlad goboleedyadana ka codsanaynaa inay ka wada shaqeeyaan xuduudahooda dhinacyada kala duwan si shaqadu ay u dhib yaraato cid walba oo Soomaaliyeed ama ganacsade ama siyaasi ama culumo oo arrinkan wax ka geysan kartana iyagana waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhibaatoobay ama ku waxyeeloobay in loo gurmado